5 qof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabul Isniintii. goobjoogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalin kadib markii kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Afghanistan ayna ku dhawaaqeen in lasoo afjaray dagaalkii ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. ilaa hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. sarkaal Maraykan ah ayaa sheegay in ciidamada ay cirka u rideen rasaas si ay uga hor istaagaan dad isku dayayay inay xoog ku galaan duulimaad militari oo lagu waday in diblomaasiyiinta Maraykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kaabul. mid ka mid a goobjoogayaal sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan caddayn in 5 qof ay rasaas ama isbuurasho ku dhinteen. saraakiisha Maraykanka ee ku sugan gegada diyaaradaha ayaanan ka hadlin arrintani. fiidiyo baraha bulshada la dhex marayay ayaa waxaa lagu arkay 3 meyd oo dhulka yaala meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin muuqaalkaas. goobjoogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meyda. dhinaca kale dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ahi iyo isbedelada ka jira dalka Afghanistan. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan iyadoo kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Kaabul iyo maamulkii oo idil. waxa uu sheegay inuusan doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar u aqoonsadaan Taliban. isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaanu rabnaa mowqif midaysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato buu yiri goob ay kasoo baxaan argagixiso. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa axaddii xaqiijiyay in dalka uu isaga baxsaday isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhiig dambe oo daata. wakaalada wararka ee Ruushka ayaa axaddii sheegtay in Moscow aysan weli u aqoonsanin kooxda Taliban maamulka cusub ee sharciga ee ka jira dalka Afghanistan. dalal dhowr ayaa isku dayaya inay soo qaadaan shaqaalihii la shaqaynayay ciidamada Maraykanka ayaa ugu baaqay dalalka kale ee saaxiibada lah inay soo daadgureeyaan dadkii u shaqaynayay ciidamada Maraykanka. Washington waxay raadinaysaa inay iska kaashadaan dalalkaasi si ay u qaataan dadka Afghaanistaaniyiinta ee halista ku jira inta codsiyada laga baaraandegayo. Albania iyo Kosovo ayaa sheegay axaddii inay aqbaleen codsiga Maraykanka ah inay aqbalaan kumanaan reer Afghaanistaaniyiin oo halis ku jira. Maraykanka ayaa sheegay in shaqaale dheeraad oo u diri doono dalka Qatar si ay ugu shaqeeyaan qaxooti fara badan oo reer Afghaanistaaniyiin oo Maraykanku doonayo in uu soo qaato. wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay axaddii ku sheegtay inay ku baaqayso xabad joojin degdeg ah oo waddanka Afghanistan oo idilka hirgasha. dhinaca kale dalalka la deriska Afghanistan ee Pakistan iyo Iran ayaa labaduba walaac ka muujiyay xaaladaha hadda ka jira, waxaana ay sheegeen in qaxootiyada dalka Afghanistan ka imaanaya ay soo dhaweynayaan.